بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الإخوة الفاضل عشر كتبنا دورة المشكلات التربوية في التلاوة القرآنية سو قارني خامسا صعوبات التعلم وحالي لهذا أرضيدا أي هيستان نوع صعوبات أي كهيستان حقا وحبرشدا أما culays iyo gaabis leana dadka ardayda saan hore usoo sheegnay midna waa cabqari oo aad faa'iq u ah mid waa mumtaaz mid waa dhexdhexaad mid dhexdhexaadku wax yar ka hooseeya mid wax kaasuu kasii hooseeya midna xoogaa dhib ah ayaaba haystaba xagga waxbarashada oo tartiib buu wax u bartaa sucubaad tacalumka marka waa baab weyn oo kutubo badan laga qoray oo tarbiyada maaragtay aad iyo aad looga hadlayo cilmi nafsi tarbawiga laakiin hadda waxaan doonayaa un keliya inaan wax yar aan ka ishaarno si inuu jiro un loo ogaado qofkii carabiga garanaya oo kusii qorana wax badan ayuu ka heli doonaa marka waxay ku jirtaa runtii mashaakilka waaweyn ee dugsiyada ay la kulmaan sababtoo ah adduunka waxaa loo diyaariyaa macallin jaamacadaha macallin khaas ku ah ardayda difficult learningka waxaa la yidhaha ama sucuubaadku tacalumka ay haystaan macallimiin gooni ah loo diyaariyaa oo ku soo qaato bajular si ay oola tacaamuli lahaayeen ardayda iyo sidii ay wax ugu dhigi lahaayeen siday u fahansiin lahaayeen marmar waxaa laga yaabaa manhaj khaasa inay loo dejiyo oo maxaa la yidhaha sawirada iyo qaabkay u dhigan yihiin iyo fahankiisii waa jiraan laakiin dacfi baa ku jira qofkii macnaha ma ahan qof waalan qof maskaxda looga jiro ma ahan laakiin qaabku wax u baranayo ayaa ka culus kan kale marka inuu jiro in la ogaado iyo xoogaa yaroo macluumaad oo ku saabsan ayaan darsiga oga shekeyn doonaa hadduu ilaah yiraahdo waxaa inoogu sii xigi doono mushkilada ugu dambeysa oo la yidhaahdo phobia المدرسة تعتبر صعوبات التعلم من أكبر المشكلات التي تواجه المراكز التعليمية بشكل عام سيكون مراكز التعليم وخلاوي القرآن الكريم بشكل خاص يدكسيد القرآن كسيجارة سببتها قرآن حفظي بكل سنة ومسؤوليات كيس وكبدين المدرسة سان هرو صح صي midda xigto oo labaad waxa weeye macallinka uma diyaarsano noocyadii kala duwanaa ee ardada u imaanayso asagana maba soo qaadanba tarbiyo iyo diyaar garayn iyo qaabka loola tacaamulo iyo qorshayaasha loo maray waxaas oo dhan waqad yakuunu sababuhaa sababta sucubaad tacalumka waxay noqon kartaa alwiraatha dhaxal dadka inay iska dhaxleen oo waalidkii uu ka dhaxlo ow amraad dimaaq dad waxaa jiro xoogaa marad uu ku dhacayo taa uu u keenay maskaxda maradii ooga dhaceen oo u keenay inuu tacliintiisa u daciif noqdaan aw ilamraad nafsiya amraad nafsiya inay ku dhaceen وغيرها من الأسباب ومن مظاهر صعوبات التعلم waxaa ka mid ah ma yaati dadka qaar waxaa laga yaabaa inay jiraa qabin laakiin qaabkay wax u baranayaan xaafidiyadeeda intay qaadi karto memorigiisa iyo say wax u xifdin karto iyo say wax u qaban karto wax u fahmi karto ayaa ka daciifsan qofka kale ومن مظاهر صعوبات التعلم ما يأتي صعوبة الإدراك والفهم fahamkiisa inuu culus yahay muqaaranatan biaqraanihi markii loo eego dadka la jinka ah ama maxaa la yidhahdaa la cayniga ah ama la cumriga ah bal rubamaa muqaaranatan biman duunahu fi lcumr qof dadka ka hooseeyo carruurta ka yaryar xitaa markii loo eego inuu ka fahan culus yahay oo cashirka ilaa dhowr mar lagu celceliyo casharada yara adagna inuu fahankiisa xoogaa ardayga u yara culus yahay laga yaabaa waxaa ka mid ah dacfu lxifd almufrad xifdigiisa inuu aad iyo aad dacfi ugu jiro almufrad ee aadka u daran waay dacfu xifdiga shadiidka يعني qof inuu idinku celceliyo haafkan ku celceliyo mawgii aan qaban karin iyo qof laba mar hadduu ku celiyo iyo qof mar hadduu maqlaba hore ka xifdinayo ashuruud inuu iska maqan wen yahay baa ka mid ah walintiwaa'iya marmar waxaad arkaysaa cunugu inuu intiwaa'i waa cunuga gooni isaga socdo iska aamusan oo haakada arbaca ضعف التحصيل العلمي cilmiga xasilintiisa inay ku yarto muqaaranatan biaqraanihi waxa uu baranayo marka la eego aad buu uga hooseeyaa dadka la eg waxaad arkaysaa cunug 10 jiro oo mid 6 jiro uu ka sarreeyo marka kanaa kaa fiican maaha ceeb in lagu ceebeeyo maaha waxa waaye saan ka sheekayn doono 10 buu jiraa laakiin meesha maskaxdiisa ay marayso waa in lagu xisaabtamo oo hadduu 2 xaraf qoro maasha allah la yidhahdo leanno taxasun buu sameeyeyba hadduu alif axmaalaha dhan uu dhammeeyo isagoo 10 sano jiro la yidhaahdo maasha allah calayk wallahi ninkan wuu soo fiicnaaday
ee aanan dhihin 10 sanaa jirtaa alfaxmaalaa dhammayn dhacda weliba mima yuؤدي إلى تخلفه من دفعته waxaa laga yaabaa dufcadii uu la socday ardada wax la baranaya inuu ka haro وربما تخلفه وفشله في أكثر من دفعة ee groupkan inuu ka haro group kale ka haro nin baa hadda kahor wuxuu ka sheekeynayay arday farbar buu la bilaabay group waa dhameeyeen isagii oo weli aanan aad u kala fahmin waxyaabihii laga sheekeynayay fartii iyo maaragtay xarakaadka iyo xitaa isku xirxirka qaarkii haddana group kaluu la bilaabay sidii oo kale groupkii saddexaad hooyadiina aad bay ugu dadaalaysay ilaahi subxana watacaala maaragtay ha u barakeeye groupkii saddexaad buu haddana usoo saftay buu yidhi marka way jiraan waxaas waa waaqic jiro weye waaqic jiro inuu yahay inaan ogaano waa muhiim jiddan si gooni ah in loola tacaamulo waa muhiim jiddan in aanan la iswaalin oo la dhihin kanaa ka yar iyo kanuu lafac ahaabaa qur-aanka dhameeye waxaan ilaahay baa qaybiyo waa in cunugaas sidiisa lagu wadaa oo sidiisa maaragtay hadduu tartiib u barto farta u dhammeeyo waa injaaz weyn maasha allah kadib haddana qur-aanka hadduu bilaabo hadduu qaar ka xifdiyo ajzaada hoose oo kaleete soo wado 5 juz qaar baaba 5 juz 7 juz iyo meelaha aan dhaafin karinba qur-aanka qaar ka mid a carruurtaas sucubaadka tacalumkooda aad uu u daran yahay dugsiga hoose ma dhaafaan dugsiga hoose wax ka sarreeyo inay fahmaan way ku adkaanaysaa marka annaga hadda waxaan ka hadlaynaa sucubaadka tacalumka daran laakiin ardada dhexdhexaadka ah ama dhexdhexaadka wax yar ka hooseeyo 60 iyo 70 iyo keeno waa lagama hadlayo waxaa laga wadaa arday farbar intii loo dhigay gruubkiisii markay dhammeeyeen oo qur-aanka qaateen isagana weli xuruuftii ku jiro wayna jirtaa wax badan way dhacdaa laakiin tira yar waay dadka way yaryihiin saan horay usoo xuso 5 calaamadihiisa waxaa ka mid ah wujuudu tafaawutin inay maaragtay farqi weyn ugu dhexeeya bayna cumri طifli الزمني cumriga ardayga xagga cumrigiisa wa cumrihi الإدراكي iyo xagga cumrigiisa waxgarasho suu u hadlaya xitaa iyo suu wax u fahmayo sanadkiisi asaga islama socdaan faqad yakuunu cumruhu mathalan 8 siniin inuu 8 sano jira laga yaaba laakin cumruhu الإدراكي suu wax u fahmaya laa yatajaawaz 4 siniin 4 sano unbuu yuu jiraa baa isleeda maskaxdiisa xuluulta marka aan soo jeedinayn waxaa ka mid ah kow ينبغي أن يدرك المعلمون وإدارات المدارس وأولياء الأمور waalidka macallimiinta maamulada dugsiyadu waa inay ogaadaan أن وجود صعوبات التعلم inay jirto لدى بعض الأطفال أمر طبيعي waa arrin طبيعي ahoo waxaa weeye dhaco لأن الله تعالى لم يخلق الناس سواسية في إدراكهم إلهي dadka muuna abuuraa iyagoo wada siman xagga wax fahankooda iyo garashada garaadka وإنما هي مواهب وأرزاق يقسمها الله بين عباده waa mawaahib iyo arsaaq uu ilaahay addoomihiisa u qaybiyo qodobka labaad ينبغي الابتعاد عن معاملة الطالب بأي شكل من أشكال العنف cunuga in laga ilaaliyo wax walba oo cunfi ama ma aragtay canaan ah hade maxaad ku canaanataa ilaahay baaba intaas siiyeba waxaa leeyahay maanta dhan inuu xuruufta kala fahmi layahay walidaalika waxaa la yidhahdaa ciyaalka saas oo kale ah markii hadda xitaa iskuullada la geliyo fasalada ugu horreeya markay dhigtaan oo ay ku tacafuraan wax kalaa loo wareejiya waxaa laga yaabaa waxyaabaha gacanta laga sameynaya inuu ku fiican yahay waxaa laga yaabaa waxyaabo kale oo khadamaad oo hadduu geli lahaa ama farsamooyin ama shaqooyin kale ah inuu ku najixi lahaa baa laga yaabaa marka in lagu sii daqdiyo xitaa ilaa dugsi sare waa inuu dhameeyo ku celi dugsi dhexe ku celi dugsi hoose uu ku dhacay ku celi maantana lagu hayo waxaa ka fiican in wax kale loo bedelo oo lagu fiiriyo wax kale uu ku fiican yahay laga cunuga haddii meesha laga soo wareejiyo mathalan oo waalidkiisoo kale uu leeyahay meel ganacsi ah ama dukaan oo ila gad la yidhaha inuu si fiican ugu ibdaacaa laga yaaba magarta ooba lacag uu sameeyo oo uu khatar ku yahayba inuu xaggaa ku shaqeeyo marka dhinac kaluu ku fiican yahay in loo wajaho بأي شكل من أشكال العنف wax walbo aad adayga in laga daayo كالعنف الجسدي sida garaac oo kale عنف اللفظي ereyga xun التوبيخ canaanta واللوم eedaynta iyo maaragtay والمقارنة in qof kale loo barbardhigo hebel baa kaa yar dad badan baa runtii nagala soo hadla arrintaas inay carruur noocaas u jooga ay macallimiinta dugsiga ay u dulqaadan lahaayeen midkaan wax ma fahmayo midatan wax ma fahmayse maaragtay iga wata maaragtay hebel iyo hebel oo ka yarba wax way barteen ayadu maxay u baran la'dahay ya akhi alcaziiz waa arsaaq uu ilaahay qaybiyo marka dee maxaad ku samayn kartaaba لأنه بحاجة cunuga wuxuu u baahan yahay ilaa man yusaaciduhu qof saacido laa ilaa man yu'diihi qof maaragtay canaantoo dhibo uma baahno
sideedabana hadda kutubtii hore ee fiqiga markaad akhrinaysid qaybaha ay tacliinta oga hadlayaan carruurta iyo edbintooda iyo in la maaragtay الضرب لأجل التأديب marka waxay leeyihiin cunuga hadduu wax kharibo toban gacanta bil intuu yidhaha macalinka dhac inuu ku siiyo toban inuu gaarsiinin baa laga rabaa laakiin min ajli alxifdi والتعلم aad looguma garaaci karo cunuga lianna mawaahibu ilaahay qaybiye waay maxaad u baran weyday kada haddaan ku garaaca balka war marka dhibka uu sameeyey ee khaladka uu sameeyey xoogaa canaan ah in laga yara canaanto yay ka hormarinayaan in wax barashada iyo fahamka iyo xifdiga ku saabsan lagu garaaco leanna waxaa laga yaaba inay halkaa dan dhigtayba leanna ilmaha yarkaa bixaaja wuxuu u baahan yahay ilaa man yusaaciduhu laa ilaa man yudihi qof dhiba uma baahnee qof wuxuu u baahan yahay saacideeyo ثلاثة وضع جدول خاص للطالب أرضيا جدول خاص وين لو سمي جدول كود اللي سعودي أو وضعه في مجموعة مناسبة له مجموعة اسكو دو حاجة ضعف حفظها إيوه waxaa laga yaabaa inay quraanka soo xifdiyaan xitaa inay dhammeeyaan baa laga yaabaa say u wadaan ma garata marka sadarrada laga dalbanayo inay bartaan casharka intay xifdiyaan muraajacada dareeriska waxa oo dhan in wax yar looga dhigo haddii gruub noocaas oo kale ay jiraan laisku daro ama keligii gooni loo wado cunug maalan wuu weynaaday wuxuu jiraa kaba soo qaad 11 ama 12 ama 10 welina farti buu ku jiraa lianna sucuubaatu tacallum baa haysto ma lagu dari karaa ciyaal yaroo 4 jira iyo 5 jira may yaa lagu darin lianna nafsiyadiisa xitaa way diidaysaa wuu niyad jabayaa maxaa la samaynayaa gooniha loo wado qodobka muhiimka ahna waxaa waaye dhiirigelinta saan soo wadno in la dhiirigeliyo maasha allah calayk waxaa laga yaabaa ilahay inuu oga furfuro waxaasba lianna dhibabka taagan waxaa ka mid ah qofku cunugu markuu arka inuu dacfi xifdiga oga jiro isagaa wuxuu iska ictiqaadayaa fikrad sayi ah uu iska qaadanayaa marka fikradda in la bedelaa la rabaa oo inuu qof wax tari kara uu yahay uu aamino oo tagyiir hadihi الfikra ma sha allah calayk qisas fara badan baa jira dad iska aaminsanaa inay waxba qaban karin waxba tari karin oo intii la dhiirigeliyey wax kalaba ku soo baxayba leanna qofka hadduu iska aamino inuu damiin yahay inuu waxba baran karin runtii hore uma socon karayo tashjiicuhu in aad loo dhiirigeliyo oo la bumbuniyo wax yar uu sameeyo wa taqabulu lyasiiri minhu wax yarna allah ka dhiga hadduu sameyo maasha allah calayk carruurta yaryarna waa saas oo kale wallahi ma si fiican baad samaysay aad in loo dhiirigeliyo taqabulu lyasiiri minhu wax yar in laga aqbalo وعدم مطالبة إن laga dalban بالجدول المعتاد jadwalka caadiga ah الذي يطلب ممن هم في سنه cumrigiisa kuwa maraya oo kale jadwalka laga dalbanayo waa inaan laga dalban وقد يكون هناك تفاوت بين عمره الزمني cumrigiisa zamaniga ah iyo cumrihi الإدراكي cumrigiisa xagga wax fahanka iyo garaadka inay waqti farqi u dhexeeyaan baa laga yaaba marka sidiisa gooni in loogu wado ayaa la doonaya 5 طبعا صعوبات تعلمka laftoodu hal nooc ma ah kuwaa soo dhodhow oo say isaga dhaadhacayaan marka dambe quraanka ku dhammeeyo kuwa aad u sii daran yihiin oo dee khalal inuu dimaaga ka jira baa laga yaabaa iyo maskaxda oo aad u sii daran kuwa waa dhexdhexaad ayaga laftooda intaasoo marxaladood sii ah hal marxalad inay yihiin yaa loo wada qaadan arday waxaa jira haddii la iska bushkareeyo 3 sadar iyo 5 sadar uu iska qaato tartiib uu isaga socdo la dhiirigeliyo maasha allah la dhaho laga yaabo quraanka inuu xifdiyo ama in badan oo ka mid ah uu xifdiyo ama uu dhammeeyaba oo si fiican uu kitaabka uga akhrin karo ajzaa ka mid ahna uu xifdiyo kaa marka waa jiraa mid dhexdhexaad baa jiro mid kasii hooseeya jiro marka macallinku waa inuu qiimeyn karo cunuga nooca uu yahay 5 تنويع أساليب التدريس ووسائله qaabka waxaa loogu dhigaa in la bedbedelo hadda jaamacadaha waxaa lagu soo tababaraa dadka dhigayo rugtan sucuubaadka tacallumka qabo waxaa lagu soo tababaraa qaababka oo la dhaqmayaan qaabka caadiga ah qof waxaa jira hadal afkaada hadduu ka soo baxa hore ka fahmi karo iyo qof rabo inuu intaasoo wasaa'il la iskugu dardaro kadib fahmayo marka تنويع الأساليب التدريس qaabka wax loo dhigayo wasaa'ilii wasaa'isha loo isticmaalayo وتقديم المعلومة له macluumada in loogu gudbiyo بأكثر من حاسة dareemayaasha dhowr dareemo oo kala duwan arag iyo maqal iyo wuxuu taabanaya iyo intaba xisaabta markii la barayo inuu fahmi waayaa laga yaabaa laakiin haddii waxyaaba intii loo soo qaada la dhaho kan haddaa ku darta meeqay noqdeen saddexdan xabo saddexdan qalin ku dar 5 bay noqdeen tiri hakada si tartiib ah loogu soo wado qodobka 6 توجيه الأسرة in lagu tawjiihiyo qoyska لعرض الطفل على الأطباء النفسيين cunuga mar wuxuu u baahan yahay dhakhtar nafsi ah oo la tacaamulo xaaladiisa
daawooyin xitaa ay siiyaan baa jiro maskaxdiisa soo kobcinayo. Marka dhakhtar tabiib nafsi ah oo weliba dee aamin ah oo aqoon leh waa in loo geeyaa cunugaalka qaarkood. Kuwan sheeganayo tabiib nafsi oo kaleete oo aan si fiican u aqoon haddii loo geeyo daawooyinkoodu maskaxdu waa khatar. Waxaa laga yaabaa inay waxyeeleeyaanba. Marka waxaa la rabaa in qof aamin ah oo mutakhassis ah loo geeyo. Halka ayaan oga baxaynaa. Waxa waaye mawaahibta Ilaahay uu qaybiyo weeye. Marka in mid walba qadarkeeda la siiyo. Sucubaadka tacallumkana intaas keliya ma ahane waa ishaaro saad u ogaataan. Macalinku fikrada uga qaato u sii baari karo. Iyo qodobka muhiimka ah oo kale waxa weeyaan inaan ogaano inay ayaga laftoodu hal marxalo ayna ahayn sucubaadka tacallumka. qodobka ugu dambeeyo insha Allah tacaala darsigeena ugu dambeeyo ayuu noqonayaa 10ka tobnaada الرهاب المدرسي ama phobia المدرسة ama school phobia waa ciyaalka baqdinta ay ku abuurmato oo dugsiga markii la gaaro isxanuunsiinayo matagayo ooyayo markii dugsiga laga fasaxona iska ordayo marka school phobia la phobiada waa erey maxaa la yidhahdaa macnihiisu uu yahay wax markuu qofku khawf uu ka qaado يعرف الرهاب المدرسي waxaa lagu tacriifaya بأنه قلق مفرط waa cabsi aad u daran من الذهاب إلى الروضة أو المدرسة xanaanada ama iskuulka inuu aado cunuggu uu ka walwalayo صاحبه بعض الأعراض calaamadaha qaar baa la socda kalkacaabati murugada والحزن way isku dhow yihiin والقلق walwalka الاجتماعي والرعب gagaxa كما ترافقه بعض الأعراض الجسدية waxaana la socdo tan hore waa acraad qofka nafsi ah waaye oo kor ah xusniga iyo rucbiga iyo waxaas waxaa ka muuqata acraad jasadi jirkiisana way ka muuqanayaan kasudaac madax xanuun wataqayu iyo inuu matago وآلام المعدة caloosha inay xanuunto وتنتهي تلك الأعراض بانتهاء المثير المسبب لها الأعراض waxaa la calaamadaha waxay ku baaba'ayaan أعراض المرض baa lagu leeyahay maradka acraaddiisa yani calaamaadkiisa وتنتهي تلك الأعراض بانتهاء inuu dhammaado المثير waxa sababa المثير kan kiciyey المسبب لها ee sababay وهو الذهاب إلى المدرسة madrasada inuu aado ayay ahayd waxa kiciyey soo ma markii laga fasaxo ogaado dugsiga xilligeeda in la dhaafo wuu imtixaamaya wuu caafimaadaya marka calaamadaha jirada waxay ku dhammaanaysaa waxa sababay oo dugsi aadka ah uu meesha ka baxo ويعتبر الرهاب المدرسي من أكبر المشكلات التربوية التي تواجه أطفال المدارس بشكل عام carruurta iskuullada jirooyinka ku dhaca ugu weyn bay ka mid yihiin cunug inuu madrasada kasoo jeedo iska ooyayo diidayo khaasatan fi marxalati rawday u badan tahay ogow ciyaalka yaryar والطفولة المبكرة carruurta 4 jirka ah ayaa la yidhahdaa yararka marka hadda ogow dugsiga ciyaalka diido ooyo qayliyo inta badan waxa waaye waxay u badan yihiin kuwa yaryar bay usii badan yihiin sababaha keena waxaa ka mid ah gurigooda inuu ka tegay oo hooyadii ka fogaaday baa dhib ku haysaba markaasaa waxaa waaye iyo meel cusub inuu tegay oo nidaam ka jiro oo wax xifdi la leeyahay wax qor la isleeyahay oo marmar uu arkayba iyadoo la iska raacay ama inta badanba walidaalika mar waxaan xasuustaa madrasa aan mushrif ka ahaa baan subax tegey cunug baan ugu tegey cunuga marka usbuucii ugu horreeyey oo maalmihii ugu horreysay usbuucyadii ugu horreeyay wuu iska ooyi jiray maalin walba wuu ooyaya markuu aabihii baa keenayo wuxuu ka noqdo wuu ooyaya ciyaalka aad loo koolkooliyaa ka mid ah guryaha lagu soo koolkooliyo aad loogu koolkooliyo markay imaadaan markuu ooyayaa ma rabo aabbaan rabaa waa uu leeyahay marka hadiyad baan siiyaa wuu sii tuurayaa waxba مثل شوكولاتة waxbaad siinaysaa wuu sii tuurayaa ma rabo ninkii maasha allah cabaar buu ku joogay madrasadii buu la qabsaday oo meeshii waa madrasada hadda kahor aan kasoo sheekeynay oo meelo alcaab ah iyo waxii aan u samaynay wixii buu iskala qabsaday marka hadda markaan arko meel fiican buu quraanka maraya markii ugu dambeysay markaan arko waxaan ku jira haye ii waran ma fiican tahay maasha allah markaa imaanaysa ka hor madrasada waan ooyi jiray buu leeyahay markaas ciyaal yar baan ahaa hadda madrasada waan jeclahay buu leeyahay marka carruurta yaryar bay kusii badan tahay waa wax dabiici ah see loola tacaamulaa marka ama carruurta yar waaweyn bay xitaa marmar ku dhici kartaa ويتفرع منها waxaa ka farcamo كثير من المشكلات مشكلات badan والاضطرابات النفسية iyo maskax qasnaan fara badan الخطيرة ee khatara التي قد تؤثر في حياة الطفل المستقبلية laga yaabo cunug inayba saamaysay mustaqbalkiisa أعراض الرهاب المدرسي school phobia-da ama dugsiga oo laga baqo calaamadaha lagu garto inuu cunugku qabo waxaa ka mid ah
يعبر الأطفال carruurtu waxay oga cabiraan oy maaragtay oga jawaabaan can الرهاب المدرسي madrasada baqitaanka ay ka qabaan min khilaali mumaarasaatin ficilo wa acraab iyo yani waxyaaba ka muuqanaya nafsiya xagga nafsiyadda la xiriira wa jasadiya iyo kuwo jirkooda ka muuqanaya tadharu cala الطفل oo ardayga ka muuqanayso ayaama diraasa maalmaha cashirka la dhiganayo al-usbuuciya wa takhtafi way qarsoomaysaa fi ayaami alcuطal fasax jiro cunugii meel ba lagama hayaba maalinka uu dugsi jirana wuu matagayaa isbitaal baa loola cararaya watabda'u tilka alacraab acraadaasi ama calaamadahaas jirooyinka calaamadooda soo ah fi lbidaaya basiita marka hore way iska fududay uma tatatawar markadan waxayba usii horumaraysaa ama usii dalacaysaa ila rafdi taam inuuba diido lidihaabi ila almadrasa inuu madrasa aado wa ibdaa'i almuqaawama inuu marka dambe muujiyo iska caabin alcaniifa ee daran dagaal inuu galo oo cararo oo kada تقسم أعراض الرهاب المدرسي إلى قسمين لaba nooc baa loo kala qaybiya calaamadahooda الأعراض الجسدية kitaabka qofkii baaro carabigana si fiican u garanayo الفوبيا المدرسية waa kitaab weyn ilaa 400 oo baal ah baa laga qoray kitaab badanna waa laga qoray rasha maxamuud xuseen halka xuseen nuun waaye الفوبيا المدرسية baa la yidhaahdaa iskandariya lagu daabacay waa kitaab aad iyo aad muhiim ah oo ingiriisi iyo luqado badan laga soo turjumay cilmi badanna uu ku jiro wax ku saabsan mawduucaas kashuxuubi ilwajhi calaamado wejigiisa jirkiisa ka muuqanaya jiro kashuxuubi ilwajhi wejigiisu inuu uu kuduudan yahay wa tagayur illown midabkiisu inuu bedelan yahay cunugii wasudaac madax wareer wa aalaamu lmacida calool xanuun annaatijati ee ka dhalanayso min alidtiraabaat annafsiya idtiraabaadka iyo qasnaanta xagga nafsiyadda ka jirta calool xanuun isku wareejinayso qayu inuu matago watabawul gayra iraadihi iyo inuu isku kaadiyo cunuga isagoo isogeynba وكثرة التردد على دورات المياه حمامك أما سوليga inuu ku noqnoqonayo maanta dhan والرعشة inuu gariirayo والحمى qandho yar baa qabanayso waxaa dhan iska yelyeel maaha xitaa qandhaa qabanayso qandho وآلام الظهر dhabarka inuu xanuunayo وفقدان الشهية dhadhankii baa ka tegayaba cunadii kumateedkii baa ka xirmaya cunadii baa ka xirmayso iyo dhadhankii وغيرها من الأعراض calaamadahaas iyo kuwii lamid ah وهي أعراض طارئة وعلامado iyo طارئة degdeg ah oo soo kordho laa shucuuriya si laa shucuuri ah oo uu cunugu automatic ah oo uu ku talagelin bay oga muuqanaya yashcuru biha الطفل cunugu wuxuu dareemi cinda اقتراب موعد ذهابه إلى المدرسة أو المركز dugsiga ama xarunta waxbarashada markuu u socdo unbay un kusoo degayaan waxaanu jiraa waxaad arka cunug subax markii dugsiga xilligiisa la gaaro wuu matagayaa suuliguu galayaa markaas hooyadii daaway siinaysaa isbitaal bay oo la tegaysaa geynaysaa cunug waxaan xasuustaa intaasoo mar laga sheegayo inuu maaragtay isbitaalada la geeyey caloosha laga baaray in xitaa caloosha bahalka lagu soo sawiro gudaha loo geliyey maaragtay la isticmaala yaa loo baahday daawooyin baa loo qoray isbitaalada negative bay leeyihin negative ninkana dugsiga ayuu diidan yahay marka عند موعد الذهاب إلى المدرسة markuu soo dhawaato أو المركز وتزول way ka zuulaysaa عندما يطمئن marka uu ku xasilo oo hubsado على عدم ذهابه إلى المدرسة dugsiga in laga baajiyey marka suu qoysku u cadaadiyo oo dugsiga ay uga joojiyaan marka waalidku waxay ku wareerayaan muu jiran yahay mase uu iska leelyahay aad baa loogu wareeraa carruurta noocaas oo kale ah acraadda marka waa jasadi jirkay ka muuqanaya labo acraad nafsi ah jirto oo nafsiyadda la xiriiro وأبرزها الاضطرابات النفسية إنه مسكحيسو ay qasan tahay والقلق walwalka اضطرابات النوم hurdadoona u saxnayn سرعة الانفعال inuu iska xanaaqayo markiiba والبكاء inuu markiiba ooyintiisa iska dhowda isku ooyayo والنحيب iyo inuu iska naxiibka waxaa la yidhaha markuu ciyaarayo cunugu uu iska leeyahay maar tartiib uu maaragtay maxaa la yidhaahdaa uu guryamaya uu naasayo oo wax oohin ahna ma aha laakiin hoos buu cod yar iyo si oohin oo kale waxaas oo kale ayuu oranaya والشرود الذهني maskaxdiisa inay muuqan tahay وفقدان الثقة kalsooni la'aan والعزلة inuu gooni ugoos iska noqdo gooni iskaga socdo والانطواء way isku dhow yihiin labada eray oo ciyaalka gooni ugoosadka ah tartiib iskaga socdo shib cunugna aan la ciyaarin maanta dhan ma ciyaaray macallin baa wuxuu ka sheekeynayay arday arrimahaas oo kale ay ku dhaceen wuxuu yidhi asagoo ciyaaraya carruurta la boodboodaya maalin intaan arkaan farxay buu war maasha allah ninkii maanta waa ciyaaraya
halkaasuu iska fadhiyaa buu yidhi. Maanta cunug yaroo ka waran 6 jir, 7 jir ah oo aanan gacan qaadayn halkaas ka fadhiyo. xaaladda haysata fiiri adiga. وقد تظهر فيهم بعض السلوكيات السلبية السلوكيات iyo dhaqamo xunxun kalkadib beenta litabriiri afcaalihim si waxa ay rabaan ay u socodsiiyaan oo u sababayaan tabriir si ay u sababeeyaan afcaalihim waxa ay falayaan وغير ذلك من السلوكيات ومن الممارسات المشهورة waxyaabaha ficilada ay sameeyaan caanka waxaa ka mid ah allatii yatacalalu biha ay ku maraamarsoodaan ama cilaad ka dhigtaan biha alatfaalu almusaabuun birihaabi almadrasi ardayda rihaab almadrasiga uu hayo calaamadaha lagu yaqaano ama ficilada ay sameeyaan waxaa ka mid ah ataakhur can mawcid alxuduur ila almadrasa suu ka daahay horta kow واختلاق المبررات واختلاق wuxuu been abuuraan ama uu samayn almubariraat sababaha كفقدان الدفتر دفتركي بان واي بوقي او المصحف او ضياع الزي المدرسي يونيفورم الزي المدرسي ويونيفورم يونيفورم كي باي قلمي ونحوه من الحيل هي حيلadaha kuwaas la midka ah وقد يحاول بعضهم الذهاب الى المدرسه qaarkood way aadayaan dugsiga bacda ilxaaxi alwaalid waalidku markuu ku adkayo ilxaaxi alwaalidayn markuu ku adkayo ku ilxaaxo ولكنهم يعودون من نصف الطريق wadadu ka soo noqonaya وربما اختلق بعضهم قار waxaa laga yaabaa inay been abuurtaan بعض الأسباب sababaha qaar لتبرير عودته من المدرسة muxuu dugsiga uga soo noqday waa inuu sababay wuxuu leeyahay macalinka baa isoo cayriyey waa soo daahday baa la yidhi kitaabkaadi soo qadaray waa been كأن يقول بأن المعلم طرده بسبب تأخره ونحوها macalinka ay soo marka hore wuu isdaahin kadib dugsigu aadi kadib wuxuu leeyahay macalinka ay soo cayriyey maxaa yeelay waa soo daahdaa la yidhi ومن أسوأ ما تصل إليه أعراض الرهاب المدرسي waxyaabaha ugu xun ay gaarto waxaa ka mid ah shuruud الطفل cunugu inuu u cararo إلى وجهة مجهولة meel aan la aqoon مما قد يتسبب taasoo u sababi karto في إلحاقه بالضرر dhib inuu soo gaaro وقد يفتح عليه waxaa laga yaabaa inuu ku furtaba باب الانحراف inuu انحراafmo albaab انحراaf iyo inuu leexdo والتعرف iyo inuu barto على رفقاء السوء saaxiibada xun ويلجأ الأطفال عادة إلى هذا التصرف carruurtu inta badan waxay arrintan ku kacaan inay gooni u cararaan duurka u cararaan عندما يواجهون markay la kulmaan mucaamala qaasiya mucaamalo lafsan min qibali kullin min الأسرة والمدرسة markii madrasadana si xun loogala dhaqmo oo la dhiirigelin oo in maskaxdiisa wax laga bedelo aan isku dayin qoyskana ay adigana garaacaan saan sheegi doono saas laguma daaweeyo labada arrin markay isku darsamaan bay gooni u cararaan mima yatasababu fi ixbaatihim ma garatay inuu cunugaas uu niyad jabo wartimaa'ihim iyo maaragtay inay isku tuuraan oo ay maciin badaan fi shaarica inay isku tuuraan ay maciin badaan asbaabaha keenta marka asbaab الرهاب المدرسي فوبيا المدرسة asbaabtiisa waxaa ka mid ah kow الأسباب الشخصية wax cunugu jiro oo hayo كالأمراض النفسية من التوحد maradka tawaxudka la dhaha ama autismka waa ciyaalka calaamado badan buu leeyahay qaar way iska aaminsan yihiin qaar hadalkoodii si fiican uma hadlayaan qaar wax bay kharibayaan oo dadkay dilayaan qaar way iska ooyayaan noocyo badan buu leeyahay والاضطرابات ciyaalka maaragtay mar walba tawaturka iyo kacsanaanta ku jirto والتوتر وقلق الابتعاد عن الأهل أهلك والأم hooyada inay kasoo fogaaday inay u keento وgaar ahaan ilmaha yaryar وغيرها من الأسباب taas waa أسباب شخصية ثانيا الأسباب التي تتعلق بالأسرة qoyskana saameyn bay ku yeelan karaan see ugu yeelan karaan waxay ugu yeelan karaan in cunugu waxa cunug aad loo koolkooliyo oo maaragtay laga badiyey koolkooliska way keentaa cunug aad loo dhibayoo awalba halkaa lagu dhibayo inuu yahayna way labadaasba way keeni karaan فقد يكون للتربية الأسرية أثر في نشأة الرهاب المدرسي لدى الأطفال ويكون ذلك إما بقسوة الوالدين على الطفل إن أدعو أددجين للدليو لنيجمنا العايو وتحميلهما إن الحنبار مارتي وش لغا صار إياه بما لا يطيق من الواجبات واجبات وكبح كان إن قرط الله صار برشاد لغا بديو واجباتك لغا بديو وقد يكون صوبت نحن كتاسوق من الدلال المفرط كل الدلال من الدلال المفرط كل انت دارن الطفل مما يجعله غير قادر تاسو كدغيسو انو سن اودين على مواجهة التحديات انو وجهه حالadaha adag ee uu la kulmayo والتكيف iyo inuu la qabsado مع الضغوط cadaadiska والالتزامات iyo waajibaadka ee dugsiyada ka jiro ومن ثم يكره المدرسة مدرسة أمو نعيها
لما فيها من الصرامة أضيق كجرا أويس والضوابط قوانينته حتى ينتهي به الأمر إلى الإصابة بالرهاب المدرسي إلى مركز من الرهاب المدرسي وكل عام مدرسي لأن وكجرا وكغال 3 قسوة المعلم معلنك إنه ككن yahay oo cunuga uu niyad-jabinayo oo markuu arkaba cunuga isku naxayo فقد يكون سبب الرهاب المدرسي قسوة المعلم على الطلاب macalinku inuu yahay macalinka kan qodob muhiim ah jiro oo waxa waaye macallimiin waxaa jira carruurta aan garaacin laakiin wejigooda keliya un ay ka baqayaan carruurta iyo hadalkooda adag iyana oo xoogaa inuu naxariis u dhoola caddeeyo kaalay u dhaho xabadka uu soo gashto oo u dhaho see tahay wiilkaygii ma fiican tahay see uu yiraahdo aana lahayn marka qadiyadda garaac keliya maaha ereyga xun shucuurka adag wejiga iyo iyo in indhaha loo guduudiyo maaragta lagu adkeeyo mar carruurta qaar iyadoo la garaacin bay intaa ka baqaan قسوة المعلم على الطلاب وإرهابهم له وإرهابه عفوا كان وإرهابه لهم وإرهابه لهم إنه حبس جنين مما قد يتسبب في إصابة الطفل بالفوبيا من المعلم والمدرسة المعلم هي مدرسة بفوبيا وعنق هذا هي كذا لناس أفر أسباب تعود إلى البيئة المدرسية مدرسة بيئة المدرسة يعني واحد يبقى جيران فقد يكون سبب إصابة الطفل بفوبيا المدرسة عدم توافقه إنه لقب سنواي مع بيئة المدرسة مدرسة أو الخلوة القرآنية أما دكسية من حيث المكان ماشي بوس كما وما فيه من العوامل الطاردة سببها عنق عوامل waxaa loo kala qaybiyaa bii'ada waxbarashada mid soo jiidanaysa miya jaadiba la marka bii'a jaadiba mise waa bii'a taarida waa bii'o cunuga cayrinaysa تضييق المكان meesha inuu ciriiri yahay وارتفاع درجة حرارته inuu aad u kulul yahay ciyaalku isu dhididaya hadda waxaa laga yaabaa meelo badan meeshii oo kulul carrigii oo kulul in marwaxadana aan dugsiga lagu xirin marka taas daraasaad badan waxay sheegayaan cunuga inuu si uu xifdinayo ay ku xiran tahay jawiga uu ku dhex nool yahay adigaba iska soo qaad hadaa kuleyl ku jirto waxba ma xifdin kartid ولذلك يفضل macalinku iyo madrasadu inay maaragtay marwaxado ku xiraan gaar ahaan xilliga kuleylada inuu marwaxaduhu ay shaqeeyaan ciyaalku ay hawo fiican helayaan dugsiyada qaar markaa gasho waa aragtay ciyaalka dhididkoodii iyo wixii ma garat marka arrimahaas in wax laga qabto muhiim jiddan wey leana bii'ada madrasada waxbarashada cunuga هي سامين كلها عدم توافقه مع بيئة المدرسة أو الخلوة القرآنية أو حاليا دكسي إنه جينجد يهي ماشي إيه كله شاي مروحاتنا ونلاهي ولذلك يحتاج جينجدها هدي لقد يسي دكسي ده حافي عن داقة وين إن لو سمي أو لو شر داقة وين دبايل في عن أرضيده إيه هليان شبك لو حرك راه إيه مروحة إنه وحره ليدي دورته إنه سجلين مهم جدا ويسيع إنه وحبارته من حيث المكان وما فيه من العوامل الطاردة سببها كانت إنه عنقه أي عير سبع أو مارتي يسوي دوير تضييق المكان وارتفاع درجة حرارته وسوء تنظيمه إنه واحد نظام أونا الحين منه وقاعد قف حاجر عريش كجرو لكن سوء قرحية مركل أيوة روج باشي إيش شمعة ودقي إيو جوجش ودقي داهية ذا لوحري سيدا وعرفيسو مروحات ده لا لا كقرحان مد دبق لحد جنباجرو marka bii'a madrasiyada gooni baa looga hadli doonaa hadduu ilaah ihahdo bii'a madrasiyada ama bii'ada ay tacliinta ku taalo muhiim jiddan waaye dugsiyada waxyaaba carruurta ku diro qayb bay ka tahay iskuulka waa aragtay guryo waaweyn buu ku yaalaa daaqaduu leeyahay wuxuu leeyahay kuraas miisas buu leeyahay ma garata carruurta bareegay gelayaan bareegka macalin baa soo gala xisad haddana bareegkada meeshaana jiingad weeye way kulushahay carruur boqol ku dhow baa ku dhex jirto yaa meesha ku jirto meesha waxba lagama bedelayo waa iska sideedii halkaas waxaa waaye daraasaad badan baa laga sameeyey inuu barashada cunuga iyo doonista uu doonayo walidaalika carruurta qaar waxa laga yaabaa inay u qaataanba dugsigu inuu ka hooseeyaba iskuulka walidaalika xitaa waalidiinta qaar ka mid ah dhar fool xun bay carruurta ugu dirayaan dugsiyada iskuulkana dhar qurxan bay ugu dirayaan marka arrimahaas oo dhan fadhi gooni ay u baahan tahay waa inaan aad iyada ugu hayno insha allah tacaala bii'ada madrasada maamulaha haddaad tahay xoog waa inaad gelisid inaad bii'ada madrasada aa wax ka bedeshid dadka muxsiniinta muslimiinta iyo aad la kaashatid iyo deriska dadka ah iyo waalidiinta carruurta ku lahayo aad la kaashatid kolba wax yar aad ka bedeshid kolba wax yar aad ka bedeshid ilaa marka dambe meel qurxan ay ku noqoto biidnillah wa faqrihi meeshu inay
ka maran tahay ila almuxasinaat aljaadiba waxyaabaha lagu qurqurxiyo ee soo jiidan kara inay maaragtay ayna ka jirin ومن حيث نوعية العلاقات الاجتماعية iyo xiriirka ka dhaxeeyo ardayda iyo macallimiinta في بيئة الخلوة القرآنية dugsiga quraanka وجود عناصر خوف waxyaabo cabsi beeraya cunuga inay jiraan ورهبة iyo baqitaan ضرب المعلم للأولاد caruurta garaacidooda وصراخه عليهم inuu aad ugu qaylinayo وصراع الأطفال فيما بينهم caruurta xitaa laftooda inay isdagaalayaano uu ka dhexeeyo lowlan وغيرها من الأسباب waxyaabahaas oo dhan way keeni karaan cunugu inuu madrasada naco أسباب تعليمية jiri karto مثل كثرة الواجبات waajibaadka badan وصعوبة الدرس casharka oo ku culus iyo waajibaadka lagu badiyo والضغط الدراسي pressure iyo inuu ka jiro iyo maaragtay cadaadis xagga waxbarashada oo xiisaduhu aad u badan yihiin وقلة الاستراحات xilliyooyinka istiraxada inay aad u yar yihiin istiraaxooyinka hadda iskuulku way badan yihiin waa arag laakiin dugsiga istiraaxaadkoodu way yar yihiin waa midda quraacda kaliya iyo midda qadada iskuulkana 45 daqiiqay dhiganayaan xoogaa break yar baa ku jira ma garatay وقلة الاستراحات مما يؤثر سلبا على نفسية الطفل نفta cunuga taasoo saameyn karto فيصاب بالخوف من المدرسة مدرسة inuu ka baqayo محاولة التغيب منها inuu isaga maqnaadan inuu isku dayo تفاديا isagoo maaragtay inuu ka badbaado doona lilixraaj xarajka uu kala kulmayo macalinka iyo ardayda intaba walmusa'alati iyo su-aasha maxaa yeelay waajibaadka meesha ku badan xulushaan u galayna insha allah tacaala xogka koowaad allutfu walliin waa in si dabacsan oo loola dhaqmo cunuga wataxsiin alcalaaqati maca atifli cunuga in xiriir fiican lala sameeyo cunuga markuu dugsiga diido waa inaan la garaacin waalidka hadduu garaaco sida cunuga aan soo sheegnay miyiga joogay intii la garaacay godka ruwaaga galay oo kale uu noqonaya hadduu markuu imaado maxaa la yidhaha la garaaco waalidka markuu guriga tagana uu soo garaaco waxaa weeye daawo ma noqonayso cunug yar baa maalin dhoweed yaa tijaabiyey adigu waxyaaba iyo sheegasho badan iyo wax baa laiga soo sheegay marka mar baan canaantay ninka waxaan arkay waaba isxiray waan u bedelay marka dariiqadii baan u bedelay waxaan inaan idhaahdo maasha allah oo ku jeclahay hadiyad baan ku keenayaa waad baran kartaa cashirkaada baro dugsiga mar dambe ha ka maqnaan kada taxasumaa marka yaan ka dareemay marka dambe waxaa ii soo baxday carruurtan ugu way kala duwan yihiin carruur waxaa jirto haddii la canaantaba isxirayaba khalaas niyad jabayo oo isxiraya marka waalidka xitaa iyo macallinka inuu ardaydiisa kala barto ayaa loo baahan yahay التنسيق الجيد إنه حرير في عن كده بين المدرسة والبيت في مواجهة المشكلة المشكلة ده نسي لو هرتجي لها إنه كوحاجره هذا عرور يروح waxa looga sheekeynayay markay waaga uu bariyo oo la toosinayo oohin bay bilaabayaan ayagoo sariirtaba ka soo kaceen madrasada dooni maaragtay diiris ay diidayaan awgeed iyo oohin sii bilaabayaan cunugaas waa in la daaweeya waaye macalinka waa inuu la hadlo maaragtay soo dhaweeyo waalidka waa in laga tashado marmarna ogaada oo waqti kooban waaye xilligaas xitaa casharada in laga daayo haddii casharada ku adag yihiin ama wax yar oo uu soo maray muraajacee la dhaho maamuluhu inuu ugu yeero xafiiskiisa oo la hadlo maaragtay xoogaa hadiyada in la siiyo bal inta quraanka in lagu akhriyo oo maaragtay ilaahay loo baryo muraajacatu alkhudba adiraasiya in dib loo muraajaceeyo casharka iyo qorshihiisa وواجبات الحفظ waajibaadka xagga xifdiga iyo muraajacada وإعادة ضبطها in dib maaragtay loo farsameeyo loo dejiyo إعادة ضبطها dib in loo dejiyo oo maaragtay bima yatanaasabu maca qudraati الطaalib ardayga qudradiisa wax la eg waxaa runtii aad ii cajabiyey maamule Nairobi kule madaraso ayaa wuxuu iga sheekeeyey ciyaalka saan oo kale markay ku dhacdo marmar waxaad arkaysaa cunug suu u fiicnaa hal mar isbedelayo oo ooyayo oo dugsiga lagu kari waayay kada wax baa cusub wixii marka carruurta markay saas oo kale ku dhacdo annagu waxaan samaynaa buu yidhi casharka intaan ka joojino 2 usbuuc intay noqotaba iyo anigu xafiiska igu imaadaayo anaa ku dhegeysanayay intaan xifdi anuu ila joogaaba waxaan ii qabo hadiyad yar sii ilaa marka dambe cunuga tartiib maaragtay oo niyadiisa usoo dhismato muraafaqatu axad alwaalidayni lahu waalidiinta mid ka mid inuu hore ugu soo raacay ila alkhalwa dugsiga cinda dhihaabi ilayha markuu soo aadayo dhiirigelin bay u noqotaa hore in loo soo raaco cunug yar bay mar saan oo kale iga dhacday marka waxaan samayn jiray hore inaan usii raaco oon dugsiga aan sii geyno maray aaba anaa ku raacaya dugsigaan kusii geynaya
xoogaa dhiirigelin buu helaa marmarna hadhow baan usoo noqon jiray inaan maaragtay soo maro kayf xaalak ii waran macalin fiicanta alxamdulilah oo gooni intaan ugu yeero aan la hadlo maaragtay maaragtay waxaasoo dhan waxay samaynaysaa qalbigiisii kor iyo usoo qaadaysa aabahay baa ii imaado carruurta ku leeyahay oo maaragtay wuu ugu faanayaaba muraafaqatu axad alwaalidayni lahu ila alkhalwa cinda dihaabihi ilayha inaan loo soo dirin waa cunuga jirada hadday ku dhacdo waa in waalidku uu soo raaco isagoona la soo jiidaynin ee dhiirigelin iyo xoogaa sheeka ah ay ku jirto ee la soo jiidaya maaha weligeedaba cunfi in laisku dayo in la jiido iyo wadada in lagu sii garaaca iyo waxaas wax macnaa ma soo kordhinayso lidaalika taasi waxaa loo sameynaya liطam'anatihi si loo dejiyo watakfiifi canhu iyo in laga fudaydiyo khaasatan fi alayaami alulaa xilliga hore ee min almarad ee jiradan ku dhacda horta waxani waa marad phobia almadrasa ba la yiri oo jiro dhan wey خمسة زيارته في الخلوة usigaba in lagu soo booqdo liطam'anatihi oo waalidka uu kusoo booqdo liطam'anatihi wa jabri khaatirihi si ma garatay loo xasilooni iyo طam'ana loo siiyo wa jabri khaatirihi qalbigiisa si loo soo kabo mar xitaa waalidku intuu cabitaan yar wax usoo qaado inuu dugsiga ugu imaado oo yidhaha macalin hebel ii soo yara fasax halkaan oo qol kale intuu ugu soo baxo cabitaankiisa wixiisa uu siiyo ii waran casharka halkee hadda marinaysaa gadaa la yidhahdo xoogaa la dhiirigeliyo ستة تخفيف واجبات الحفظ واجبات كحفظها والمراجعة iyo muraajacada in laga yareeyo canhu fi fakrati alcilaaj sidii hadda aan sheegaynoo kale inta laga cilaajinayo mushkiladan in laga yareeyo casharada lana inta badan casharada ku adag baa qayb weyn ka ah dugsiga inay nacaan carruurta gaar ahaan kuwa waaweyn kuwa yaryar markay ku cusubta way diidaan oo waxaas waa wax la yaqaano maxaa la yidhaahdaa laakiin waxaan ku wadaa kuwa waaweyn oo kale casharada ku adag bay u badan yihiin wayumkinu an yuktafa cafan halka waa godaal wey an yuktafa in lagu kaaftoomo bitakliifihi in lagu maaragtay waajibiyo bimuraajacati bacdi suwar walajzaa allatii yaxfaduha jayidan casharo iyo jusas uu hore usoo xifdiyay in la dhaho ku celceli xataa tataxasana xaalatuhu bal intuu wax iska bedelayaan in tartiib loo soo kabo hadiyad la siiyo la dhiirigeliyo marka dambe uu iska ficnaan doonaa niyadiisa soo dhismayso jiradina way ka dhammaan doontaa mar walbana aana laga tegin in ilaahay loo baryo subxaana watacaala sabca cardu xaalat الطفل على الطبيب النفسي إذا استدعى الأمر haddii arrintu ay keento in dhakhtar loo bandhigo in dhakhtarka loo bandhigo cunugaas oo maaragta xaaladiisa hadday sii cuslaato wey الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إلهي baa mahadsan waxaan gaarnay dhammaadka kitaabkan المشكلات التربوية في الخلاوي القرآنية casharkan ugu dambeeyey alphobia almadarasiya inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa iyo dowladiiba ilahi subxana wataala waxaan weydiisanaynaa an yajcalaha fi miisaani xasanaatina jamiican yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين muslimiinta iyo dugsiyada iyo macallimiintana inuu ilaah ku anfaco kuwii inta ay xambaarsan yihiin ee ay dhigayaan sifoobo oo maaragtay ka run sheegana ilaahay uu naga dhigo camalka aan qabanayno shariifka aan ilaahay uu naga aqbalo subxaana wa tacaala juhdiga ballaaran ee qur'aanka aad gelinaysaan ilaahay ha idinka abaal siiyo waxaa weeye runtii waa miisaan xasanaadka ilaahay subxana wa tacaala qofka ugu kabo rajo weyn buu leeyahay maxaa yeelay suuratu faatixa keliya haddaa qof bartid axad ulculamaa baa mar wuxuu xisaabinayay suurat alfaatixa meeqaa ku jirto ajar markii suurat bisanka iyo lagu daro waxay noqonaysaa 180 xaraf wax ku dhow 173 inuu ahaa baan filayaa markii 10 lagu dhufto meeqay noqonaysaa 173 10 ku dhufo waa 1700 iyo soo maha ayib shanta salaadood waa iyada lagu akhriyo shanta salaadood faatixada waxaa la akhriyaa 17 mar maxaa yeelay ragcad walba waa lagu akhriyaa waxaa la akhriyaa maxaa la yidhaahdaa 2 mar 2 ragcadood oo fajarka ah 4 duhurka waa 6 4 waxaad ku dartaa maxaa la yidhaahdaa casarka halkaas waa 10 4 iyo 4 iyo 2 waa 10 maqribka oo 3 ku dar waa 13 4 waxaa ku dartaa
cishaha 17 mar waaye 17 mar marka ku dhufo meeqay noqonaysaa sunnooyinkii iyadoo la gaarin sunnooyinkii qofka asooba gaarinba maxaa la yidhahdaa uu salaada uu ku tukanayay ayadan suuratulfaatixa uu ku tukanayay iyadoo la gaarin ayay meeqay noqonaysaa wax aad iyo aad iyo aad u fara badan ayaa halkaa ka soo baxayo marka intaasoo ajar ah marka lagu dhufto 6 bilood malaayiin bay gaaraysaa ajar ah qofkii aad suuratulfaatixa keliya aad bartay ayaa intaasoo ajar ah ka helaya adigana mithla dalik لأن الدال على الخير كفاعله siduu xadiiska nabiga u ahaa sala allahu alay wasalam marka walaalayaal marka ilaah subxana watacaala ha idinka aqbalo naga wada aqbalo dugsigaas iyo qur-aanka iyo juhdiga ballaaran oo gelinaysaana mid maqbuul cinda allah tacaala allah ka dhigo inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dowradii almushkilaat atarbawiya fi lkhalaawi alqur'aaniya ilaa dib aan ugu kulmi doono dowro kale intaas ayaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh وصلى اللهم على سيدنا محمد